السلام عليكم كلهم وعن داود يركسو دوادا وبرامج جارة أون مانتكو تلستاقي دون وقرى محمد إبراهيم مرسل الله ومقعد ريحيان كجوشة قرمضة وأهمية تحنا أيوب محمد إبراهيم مرسل صودقا برتيسة فيسبوك جارك قرمضة أيها هاد بتيرد الغصارة مرحلة قدام بيسي ديغان كصومالي يسدو وكلا دمان جيس كأفريقيا قرمضة أيها انت بدل لك هلا هيان كدير هلقن كجويني مدون كصومالي وغاديني مدة السعودية برنامج كينا maanta waxaan ku dul istaagi doonaa qormada hay'anka guusha qaybtiisa 14aad balse marka hore bal dib u milicso halgankii dheeraa ee Soomaalida ogaadeen ay soo gashay شيء طبعا استعمار طبعا استعمار تقوم يلو تنكر شيء طبعا استعمار طبعا استعمار تقوم يلو ururka jabhadda xoreynta Ogaden waxa la aasaasay sanadkii 1984 tan iyo xilligaasna waxa ay wadeen dagaal hubeysan oo karana dawladda Itoobiya iyo maamuladii soo maray deegaanka waxaan haddaba ay weeraro ka fuliyeen deegaanada Soomaalida ee Itoobiya iyadoo ay ujeedada ururka ay u dagaalameen ahayd in gobolkan Soomaalida ay Itoobiya ka madax banaanaad waxa maanta aad aragtiin oo dhex joognaa jeelkii lagu magacaabi jiray jeel Ogaden taariikhda adduunka soo martay jeel cid loogu magac daro horta waa kii labaad ee ogaada dagaalkii adduunyada labaad yaa naazigii Hitler ninkan maqal jirteen qormada maanta waxa laga hadlayaa hayaanka qaybtiisa 14aad cadaadiska lagu hayo cadaadiska lagu wado oo wanaf muxuu ina dhaxalsiin karaa halgan dheer ee aan soo maray wuxuu soo jeeday hayaan dheer wuxuuna ahaa halgan murug iyo walwal lagu soo maray oo kooxii TPLF umadeena dhaxalsiisay taariikh madow oo bar ku ah maanta umadeena TPLF waxay umadeena u geysatay waa mid meel inoogu suntan shacabkeenu waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay hambadii ka soo doogtay haraagii TPLF isbedelkii intuu dhacay ee shacabkeenu isu yimid gudo iyo dibadba waxay shacabkeenu ku naaloonayeen in ay helaan dabayl caafimaad intii soo gaadhay dooga ay u helaan mustaqbal u horseeda farxad iyo wanaag ayaga oo si weyn ugu faraxsanaa go'aankii ay gaadhay ONLF ee ahaa inay xaqooda ku raadsadaan hab nabad ah iyo aayaka talinta ummadda aanu soo daga dulucda hadalkayga waxaa baryahan deegaanka ku soo kordhay qorshe lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa shaqo ee ay wada ONLF kuwaas oo laga horjoogsaday shaqooyinka ururka ay hayeen wardheer goday dhagax buur dhanaan email waxa ishortaaga shaqada ururka waa madaxda deegaanka wardheer waxa shaqo urur u joogay mas'uuliyiin oo wanalaf ah oo ku sugan magaalada waxa loo sheegay in aynan 3 maalmood qaban karin wax shaqo maalmo kadib madaxda ONLF waxa looga yeeray saldhigga booliska ee wardheer halkaas oo lagu sheegay in ay yihiin maxaabiis xiran mudane Carafaad markii lagu hanjabay in uu yahay maxbuus wuxuu yiri shahaado kale ma haysataa oo aan ahayn xarig midda baan si fiican u aqaana ayuu yiri Carafaad waa hadal xasuus ku reebi kara dhammaan kuwii soo maray xabsiyadii dulmiga ahaa ee la iska dhaxli jiray waxaana filayaa ruux kasta oo tuujiya maskaxdiisa inuu ku degdegaynin cabiida bulshada isagoo ujeedadu tahay ku gaari kursi siyaasadeed waase lagu hungooga guul laguma gaaro waxaana tusaale u ah hanyaradii TPLF iyo kuwii wakiilka u ahaa ee hadda jeelasha ku jira ruuxa han siyaasadeed ha yeesho laakiin hankiisu yuusan noqonin mid hor istaaga hayaanka dheer ee loogu jiro dalka iyo dadka la gumaysto in xuquuqdooda loogu raadiyo shacbiga waxaanu wacyi gelinaynaa koow ama xisbi ha ahaadeen wax ka ahaadeen inuu shacbiga xuquuqdiisa raadsado
kow shacbiga waxaan ka dhaadhicinaynaa ma ogtahay inay xuquuqdaadii maqan tahay qof yahow Soomaaliga xuquuqdaas oo ah xuquuqdaas mid siyaasadeed mid dhaqaale mid amni mid kulli xuquuqdii way ka maqan tahay shacbiga Soomaaliya xuquuqdeedii inaanu helaan rabnaa TPLF oo dadka muddo 30 sano ku dhawaad ku amar ku taagleynaysa ayaa oo la soo afjar weeday ayada oo shucuubta geeska Afrika intooda badan adeegsanayay maanta shalay ma aha waxaana markasta guuleysan waa rabitaanka shacabka qolay qorgabad biyo kuma cabto ayuu ahaa hadalkii ugu dambeeyay oo ku soo xiray qormadiisa Maxamed Ibrahim Mursal oo ah agaasimaha guud ee warbaahinta Qorraxay Media daawadayaal xusuusiye qormadina waxay ahayd qaybtii 14aad ee qormadii hayaanka guusha ee lagu cabira maalin walba ama saacad walba dhacdo taagan ee ka taagan gaar ahaan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida ogaadeeniya qormada waxaa idin la socodsiinaya waa aniga Mustafa Sheekh Maxamed Mustafa Cilmi bartaas ka daawanaysaan waa Qorraxay Media faalada hoos noogu reeb adoo mahadsan kana daawa markasta qormooyin barnaamijyo warar faalooyin iyo xaaladda ugu dambeysay ee deegaanka Soomaalida halkan waa Qorraxay Media waa wehelkaaga